wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hinda sharciyeedka xamuulka iyo xadeynta cabirka baabuurta taasoo ay soo diyaarisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda howlaha guud ee dalka. labada hinda sharciyeed ayaa goluhu ay meel mariyeen waxaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku amaanay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka dadaalka ugu jirto hanaanka marista wadooyinka in la hagaajiyo sidoo kale in sare loo qaado badqabka gaadiidka xamuulka ah ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho. shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale darajada safiirnimo lagu dalacsiiyay Muxyidiin Maxamed Kaalmooy Xasan Daahir Dhimbil oo dhawaan ka yimid Somaliland horeyna uu ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda caafimaadka ee Somaliland. xasan xundube jimcaale maxamed isaaq ibraahim iyo maxamed cali mire oo horey u ahaa safiirka qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Koonfur Afrika. mas-uuliyiintan cusub ayaa lagu talagalay inay ka mid noqdaan xubno dhowr ah oo golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya bilihii la soo dhaafay si joogto ah u magacaabayeen kuwaas oo ay sheegeen inay noqon doonaan safiiro u fadhiya dalalka caalamka Soomaaliya. waxaa xusid mudan inay jiraan safiiro horey golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ay u ansixiyeen kuwaas oo ilaa hadda aan shaqo bilaabin isla markaana aan magacaabis rasmi ah lagu soo saarin.